بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولياء kusoo dhawaada gaar ah oo aan ugu ducaynayno walaalkeen Cabdulqaadir Cali Yarow gudoomiyihii midnimada beesha Gorgaate oo muddo u xanuunsanaa cudurka coronavirus-ka isbitaal ugu jiray waxa halkan maanta isugu yimid inay kulankan ducada u qabtaan walaalkeen in Ilaahay caafiyo suldaankii guud beesha Gorgaate suldaan Mubaarak Cali Xirsi suldaanka beesha Wadalaan suldaan Cabdirasaaq Warsame iyo suldaanka beesha Silcis Sayid Sheekh Cabdullaahi iyo ugaaska beesha Maxamed Gorgaate madhibaan ugaas Caydruus dhammaan waxay halkan isugu yimaadeen maanta inay ducadan walaalkeen Cabdulqaadir Cali Yarow loo samaynayo inay ka qayb qaataan marka walaalahana daawanaya oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay ducadan qayb ka noqdaan walaalkeen oo hadda muddo bil ah oo ma ku jira dalka Norway oo xanuunka coronavirus-ka ku dhacay ilaa haddana life support ku xiran yahay maadaama uu ahaa shakhsi aad u muhiim ah aad u wanaagsan hayay oo khayri inaan maanta xusno oo macnaha aan u ducayno oo aan ducadanada ku kabno dadka Soomaaliyeedna daawanayana aan ayagana u weydiino inay duceeyaan ayaan maanta halkan ugu nimid intaana marka sanaadiinta halkan ku jirta beelaha Gorgaate ka kooban inta aanan u gudbin Cabdulqaadir Cali Yarow waxaan ku kulannay markii iigu horeysay xafladii lagu qabtay Gothenburg dalka Sweden isagoo u soo sameeyay xaflad socod ka badan ilaa Gothenburg 10,000 oo mayl waxa uu sheegay inuu dilid gareeyay kilomitir baawurkiisa oo markuu Jarmalka tagay ay ahayd 5,000 oo kilomitir markuu noqdana ay noqotay 10,000 oo kilomitir wuxuu arintaas u maray inuu ka shaqeeyo camalka khayriga ah dadkana isu keeno dadkana uu walaalayo waxaan wada saxanay guri waxaan ku wada safarnay gaari waxaan meelan wax ku wada cunay wuxuu ahaa nin aad u khayr badan aad iyo aad u qalbi wanaagsan runtii aan samaantiisa wanaagiisa la soo koobi karin sidaa darteed waxaan weydiisanaynaa inuu Ilaahay xanuunka caafimaad ugu bedelo si degdeg waxaan rabaa marka inaan marka hore ku soo dhaweeyo haddii Ilaahay idmo suldaan Cabdirasaaq suldaanka weynta Wadalaan oo ka mid ah sanaadiinta Gorgaate bal inuu isaguna wax ka yiraahdo soo dhawaad suldaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحنو مانت isugu nimid inaan u duceeyno walaalkeen oo qaaliya walaalkeen oo nin wanaagsana walaalkeen ay u dhaqaaqay wanaag sida uu abuuri lahaa walaalkeen oo aad iyo aad noogu weyn waqtigiisii intii uu gudigan jiray ninkii naftiisa u horay iyo maalkiisa shaqadiisa uu joojiyay uu istaagay wanaag nin walba oo wanaag suufiyana ilaahay baa wanaagiisa siiya ilaahay siduu quraankiisa ku sheegay wuxuu inagu tilmaamay kuntu khayra ummati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhuna 'anil munkar waxaad tihiin ummad kuwii ugu khayrka badnaa ee wanaagga isfarayay ee xumaanta iska reebay walaalkeen Cabdulqaadir Cali Yarow wuxuu ahaa nin wanaag u istaagay wuxuu ahaa nin wanaag inuu doono raadiyay wuxuu ahaa nin habeen iyo maalin u soo jeeday sidii dadka walaalaha ay isugu imaan lahaayeen ay u midoobi lahaayeen oo dhibaatada yar dhexdooda taala sidii loo saari lahaa walaalkeen xanuunka qabsaday horta shaydaan ayaan xanuunsanin
mu'miniintu waxaa lagu imtixaami jiray jiradana waxa weeye dembi dhaaf marka walaalkeen waxaan ilaahay uga baryaynaa xanuunkaa qabsaday inuu noqdo mid dembi dhaaf ah oo ilaahay dembiga uga dhaafo wanaaggii uu qabtayna oo ilaahay ugu bedelo yani xasanaad iyo ajir weyn waana uu helayaa nin walba wixii uu mutaysto ayuu helayaa nin walba wuxuu u istaago oo uu qabto ayuu helayaa waxaan ilaahay uga baryaynaa walaalkeen oo xanuunsan in ilaahay ka kiciyo xanuunkiisa booskiisii oo bannaan jegadiisii meeshii hawshii oo noogu jiray oo istiil aanu tabayno oo aanu ka tabayno walaalkeen oo maqnaanshihiisa waxa weeye hadduu hal jir xumaado oo jirado kulligeen waa wada jiranaynaa xanuun baa nahaya xanuunka nahayana waa walaalkeen xanuunka hayuu ka mid yahay walaalkeen waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad khayr qaba ilaahay uu siiyo oo caafimaad wanaagsan ilaahay uu siiyo oo uu ka kaco oo inoo yimaado mar kale uuna hogaamiyo sidii wanaagga iyo cadaaladaheed iyo dadnimadaheed uu nagu hogaamin jiray oo ku wada guddiga in ilaahay dib ugu soo celiyo hadalka yaanan sii badanin waa lagaga dambeeyaa suldaanka iyo salaadiinta kale iyo ugaaska iga dambeeya iyo axmed cali hudow iyaga ayaan u dhaafayaa wixii dhiman ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu noqdo kii ka kaca oo sujuudda aan ugu barino ilaahayga rabbiga subxaana qaadirka ah inuu ka kiciyo xanuunka haya sidaasaanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay ha ka kiciyo aamiin haddana waxaan hadalkii sidaasaan ugu soo wareejiyey walaalkay axmed cali hudow waayahay suldaan cabdirasaaq kolley sida nidaamku yahay meel kasta su'aal walba gabagabadeeda ayaan suldaanka guudsiinaynaa sanaadiinta kale ayaan kala hormari doonaa insha allahu tacaala haddana waxaan rabaa inaan siiyo sayid sheekh cabdullaahi oo suldaanka beesha silcis gorgaad sayid cabdullaahi soo dhow waa dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullah dhammaan waa idin salaamayaa ugu horreyntii suldaan mubaarak cali xirsi suldaanka guud ee gorgaate suldaan cabdirasaaq suldaanka wadalaan ugaaska beesha ban aydaruus iyo axmed cali hudaay oo arrintaan noo soo runtii khayr allah ka siiya arrintaan noo soo barnaamijkaan noo soo abaabulay intaba waa idin salaamayaa salaan kadib hadda kolley waxaan u malaynayaa hadalkii inta badan suldaan cabdirasaaq ayaa qaatay walaalkeen munaasabadan maadaama ay tahay munaasabadii loogu ducaynayey cabdirasaaq ninka la yidhaahdo cabdulqaadir cali yarow laha caafiyo run ahaantii anigu yani aqoon dheer isumaanaan lahayn waxaan u malaynayaa markii ugu horreysay oo aan wada hadalnay waxay ahayd bishii january hadda bisha sanadkan akhirkeedii marka inta yarayd oo aan la hadlayay waxaa iga muuqatay maaragta runtii nin aad u qiimo badan oo muxuu ahaa qalbi wanaagsan oo hawshan oo madaxda ka ahaa runtii yani oo guddoonka ka ahaa yani aad ugu firfircoon jecelna inuu wax ka qabto oo maaragta muxuu ahaa ka hirgalaan arrimuhu ka hirgalaan yani waxaa igu filaad waxaan u malaynayaa 10 daqiiqo in ka yaraan sheekaysanaynay marka runtii intaas ayaa igu filan muxuu ahaa si aan tilmaam uga bixiyo ninka la yidhahdo cabdulqaadir cali yarow oo ilaahay aan ka baryayna galabta halkaan aan isugu nimid intaasoo salaadiina iyo intaasoona dhegaysanaysa inuu ilaahay caafimaadkiisa buuxa ilaahay uu siiyo kama ilaahay agtiisa kuma fogo waa yakuun muxuu ahaa inkastoo ay ka dayrinayaan muxuu ahaa qaladii dhaqaatiirtii yani hadalkoodu muxuu ahaa tii ilaahay uu yiri maaha جلجلع وحال يري جلجلع إنه لو ما دنتو هذا ذاك إنه لو ما وارو مركب وحال إلهي ورت مركب روجو برينا إنه عافما دق وطعم إلهي وسيو مركب اللي بعدنا هذا محور قادر كل يبقى أنت شو كودا جرتيا أنت ما أنت كوأتر ستا باش قرقاتها ويا وحنو ملاينا يا دمان ويوضا قرانا يعني عدة ويا هاي مركب وما بقى هنا مارت كلية ما أنت هنا أنا وحكي يراهدو أما سلطان عبد الرزاق وحكي يراهدو أما سلطان مبارك وحكي يراهدو
inkastoo hadda mas-uuliyaddii annaga maanta hadda nala ku ixtiraamo fadhigan muxuu ahaa barnaamijkan ka qaybgalkiisa oo si live ah haddana waxaan leeyahay maaragtay cabdulqaadir ilaahay ha noo soo caafiyo nin la heli karayo waa laga yaabaa bani aadamku qof kasta waa laga heli karaya laakiin hadda maanta marxaladan hadda la marayo isma lihiin hadda dhaqsi sida uu howsha ku waday iyo niyad wanaagii iyo firfircoonidii iyo kartidii ayaa hadda maaragtaa dhaqsi noo muuqda isma lihi sidaa darteed ilaahay haddana mar labaad iyo mar saddexaad ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg oo taama u siiyo marka aniga intaasaan uga baxay maaragta assalaamu calaykum waraxmatullahi rabaa inaan siiyo codsanaynaa walaalahana daawanaya inay iyaguna duceeyaan gareeyaanna sida ummadda muslimiinta ah oo dhan ay noola wadaagaan ducadana aan maanta samaynayno dad wanaagsana ku jira meeshay naga jiraana garan mayno marka in loo wada duceeyo qof walba oo videogan daawadaa inuu sheer gareeyo una duceeyo walaalkeen in ilaahay xanuunka ka qaado ayaan weydiisanaynaa waas caydiro soo dhow آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد علي هدي سيجاران كو سلام يا ودكم أحسن تاهي مرة والبمارك تي في جن جرجرت مارك تي داتي هنا سيد إلهي سبحانه وتعالى وحوي أيوين بندوق شرطة إلهي أنه نجمع كقاضو سلاطين تكررنا سلطان كجود والسلام يا سلطان سيد الشيخ عبد الله يا سلطان عبد الرزاق يا دمان ومدر هير جرجرتي يا هير هوية وينه يا صومالي ودم والسلام يا ثانيا وحين كل نوجي ده وحوي أرنتن قدوميهن عبد القادر علي يرو حنونك إنه هايسا أود إلهنا وحوي وحول بإلهي بقدرة نيو وها أد قيمة بدن أنا مركي أن كسب بيري سلاي فايو يقصوا وعي وساسا نوشة سنة مدة ساعة نيم بدن التلفون بانقوة هذا اللي مدنا وسوى الشقين إني nin waxa uu ahaa maaragtay kaalintiisaas loo ilmaday gudoomiyaha ummadda dhan inta kala maqnayd intaasoo meelood kala joogta intaasoo dhaqan kala haysata ayuu isku waday nin walba oo meesha ku jira uu dareemaya dulqaadkiisii mid dadka caqligoodu ma sinna mid cilmi badan iyo mid cilmi yar iyo mid cilmi dhaxaaba siday tahay buu la dhaqmi jiray ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad sareecana inoo siiyo xanuunkan waa ku raagay sida looga daynayo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanu ilaahay ka dhigin taariikh dheer oo dubdhaxaada ayuu ku leeyahay arrintan midnimada gurgaarte marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u baryaynaa inuu caafimaad degdega inoo siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagoo nabad qaba uu hawshiisii iyo shaqadiisii uu inoogu soo noqdo waxaan aad ugu rajo weynahay ninkii gaandi la oran jiray ee hindiya xoreeyey baa waxaa la yidhi markuu ololaha waday baa la xidhay ingiriiskii baa xukumay marka sanadaa lagu xukumay oo aad isagoo wejigiisu madow yahay oo uga tiiraanyaysan xidhay waa la soo daayey hawshii buu galay kabacdi baa haddana lasoo qabtay jaajkii markii hore xukumay baa haddana ku celiyey 10 sannadood buu xidhay wuu qoslay wuxuu ku yidhi markan inta yar ku xidhay buu adigii qosli murugaysnaayo maxaad maanta u qosashay wuxuu yidhi markii hore keligii baan ahaa gaandi keliyaan ahaa laakiin iminka 100 gaandi baa jooga buu yidhi oo hawshii way soconaysaa waxaan aad ugu rajo weynahay in inkastoo inaanu helayn cabdilqaadir oo kale haddana ayna hawshiisu baaqanayn ilaahayna waxaan ka baryaynaa oon mar walba u ducaynaynaa oon ummaddana ka codsanaynaa in loo duceeyo
waayo waxa weeye axad aad iyo aad iyo aad qiimo inoogula weeye aad baa wallaahi aan uga dhibtooday barashadiisii marka qofka wanaag iyo sharaf iyo ixtiraam iyo aad wax wanaagsan ku baratid beriga ka sheekeynaya axmed uu safarka dheer cali yaabare u gelayey waa tadogeyd meel walba uu maraya wuu nala soo socodsiin jiray waqti winteray ahayd oo baraf uu daayey waxa weeye gurigiisii buu ka tegey wixii dee haddana ilaa maaragtay intuu maray waadan arkayna waxaasna waxa weeye kalsooni iyo raaligelin iyo qiimo inuu odayga qiimaynayey waxyaalaha maaragtay aad u tiro badan uu ka sameeyey maamulka uu ku wadayna waxa weeye waxaynu xasuusan doonno weeye ilaahayna waxaan ka baryaynaa isagoo nabada inuu inoo soo noqdo ilaahay baanu ka baryaynaa inuu caafimaad degdega inoo siiyo walinahaasaan kusoo koobaya aad iyo aad umahadsan tahay ugaas caydruus hadda waxaan rabaa inaan siiyo sultaanka guud beesha gorgaatada sultaan mubaarak sultaan dabcan cabdulqaadir waa taqaanay intaadan suldaanka noqon iyo inta markaas suldaanka noqotay iyo intii ka dambaysaba bal adiguna maaragtay marka hore u ducaynaya aan kala maaragtay taqaano kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين walaalaha reer gurgaatay halkan ku jira waa idin wada salaamaya suldaan cabdirasaaq iyo ugaas cali daruus iyo suldaan sayid iyo walaalkeen axmed cali huday halgamageena weyn dhammaantiinba waxaan idinku salaamaya marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد السلام walaalkeen cabdilqaadir cali yarow horta marka hore soomaalidu waxay tiraahdaa qofku markuu dhintay ka hadlaa intuu nool yahay taariikhdiisa iyo kama sheekeeyaanoo fikrad qaladay ka qabaan innagu kolley maanta taariikhdiisa aad uma gelayno waxaan alla bari aan u samaynaynaa ilaahay u baryaynaa duco in ilaahay noo caafiyo ilaahay caafimaad saraacana inuu inoo siiyo baan maanta kolley aan ka hadlaynaa iyo xoogaa aan taataabano qof waliba cabdilqaadir intii uu ka yaqaanay wax ka taabto cabdilqaadir markii aan bartay ilaahay waxaan horta uga rajaynayaa caafimaad taama oo degdega inuu ilaahay siiyo oo ilaahay uu caafimaadkiisa iyo buuxa ilaahay u soo cesho albaab weyn baa nagu furmay runtii intii uu xanuunsaday shaqooyin badan oo kala socday oo si wanaagsan u kala socday oo runtii aan dadku markii hore tabayn ayaa kala socday maalin alla maalintii uu cabdilqaadir soo dhacay oo xanuunkan uu haleelay howlo badan baa naga istaagay run ahaantii oo xanibmay maqnaanshihiisa daraaddii ilaahay waxaan marka hore uga baryayaa in ilaahay caafimaad shareecana siiyo ilaahay inuu caafimaadkiisa u soo celiyo walaalkeen nin qaaliya buu ahaa runtii aad iyo aadna u dulqaad badan howlo badan baan wada gallay intii cabdilqaadir waxyaala waxaa ka mid ah dhexgal walaalo la isu keenayo arrinta gurgaate dee nin waliba uu garan karaa uu qiimeyn karaa maanta baaxadda halkay marayso iyo halka ay joogto walaalo 700 oo sano kala maqnaa waa asaga iyo tiimku dhistay ee uu urursaday maanta halkaas muddo yaroo kooban oo 5 bilooda ay isdhexgalkaa ku sameeyey oo maanta ku walaaloobay oo aan war iska hayn shanteena qof ee hadda maanta halkaa fadhida midkeenna midka kale war kama hayn jirin aqoon badan isumaynu lahayn wada dhalashana waa inaga dhaxaysay oo isriya ab baynu isu lahayn haddana iska warhayn ma jirin ilaahay kasakow mahad kasta allah leh alle mahadii ka bacdi cabdilqaadir baa sabab u ahaa asaga iyo tiimkiisa oo axmed cali huday iyo cabaas carey iyo rag kale oo aad u fara badan ay ka mid yihiin asaga u ahaa ninkii samaystay oo maanta walaalaha gurgaate isdhexgeliyey oo walaaltinimadoodii ka shaqaysiiyey
dee maanta mid lagu taamayo oo miro dhashay oo meel martay maanta ah cabdulqaadir maalinkii iigu dambeysay waxaanu ka wada hadlaynay qaab dhismeedkii xafladda u dambeysa xamar lagu dhammaystiri lahaa ilaahay ha caafiyo ilaahay caafimaad baan uga rajeynayaa wax badan baanu ka wada hadalnay ma jecli hadda inaan sii qodqodo laakiin waxaan leeyahay dhammaanteenba inaynu u ducayno walaalkeen aynu u ducayno oo ilaahay caafimaad sareecana oo taama inuu siiyo dhakhaatiirtani maaha alle maaha waxa weeyaan waa uun aragtidooday hadleen tii alla ayaa mar kasta meesha taalla in ilaahay inoo caafiyo ayaa alla uga baryo in alla inoo caafiyo ayaan alla inooga baryayaa waana kugu soo wejiyey walaalkay axmed cali huday عاد صبح كاميرا عاد وسوى وياهي waxaa suudan aad iyo aad u mahadsantahay waxyar telefoonkaaga hoos u degay marka madaxaaga kor aaday telefoonkaaga marka kor u qaad suldan si aad hoos ugu soo degto madaxaaga hoos ugu soo degay waayahay barnaamijka toos aad ugu jirtaa cabdulqaadir marka ku soco cabdirsaaq miya waxaan salaamayaa khiyaarta meesha ku jirta si waxaan idiin salaamayaa raxmatullaahi wabarakaatu السلام qadir cabdullaahi oo kala soo hadlaya waxaan rabaa inaan to alla bariga iyo ducada waana la يا عز وجل هذا القضاء أيام فيليان أحمد هذا الكيس في عن الله مقلة هاي ما ي تذكر على هالكن كسرته هذا الكيس هو أنا الكيس إن شاء الله codkaaga afka uu ku dhaweey samiicadda hadal noqo هذه أضبط ما عبد القادر جزاك الله وياهي سيدي هوشان وحنا وصلي عبد القادر وحنا نقول بحي سؤاله أي ولول كم وجريان ويليهم أسيقوا حنوسن يهي أو الفتال كتيرو أو شيء أي وضي سيدين نقونيسا marka sababta aan sanaadiintiina macaawo isugu keenay in loo duceeyo cabdulqaadir ilaahay inuu caafiyo dadkana qalbiga loo dejiyo ayaan ugu talagalnay
marka waxaan rabaa kow inaan ku soo dhaweeyo suldaan sayid sheekh cabdullaahi bal inuu dadka wixii uu oran lahaa walwalka ka qaba uu haya cabdulqaadir inta uu waa dhowahay macnada codka xoogaa waa gogo'aya aniga xaggayga miya mase ma garanayo maqalkaagu yar si fiican uma maqlin igu celi warkaa axmed ogolaal kayga ma la maqlayaa moogi idinka kiina waa iga gogo'aya kiina waa yaashay garab badan horta gadaal baa jira oo didaya qofka waxaa jirta aad moodo agtiisa inuu lagu garaacaya inuu qofku yahay garan maayo oo last 15 minutes ay nahaysatay qaraacaas marka ma maqlin hadda may maqashay halkaa igu celi si wanaagsan uma maqlin si wanaagsan cabdirasaaqoo maxagaaga sanqadh meel baa sanqadh yaroo ka baxaysaa buu yidhi qar badan oo qararaac cabdirasaaq xaggaada ka socota suldaan cabdirasaaq aniga xaggayga wax dhaqaaqaya ma dhex xaggayga waa mahadsan tahay walaalkiis hadalkaan oo inkastoona dhegaysan oo hadalkeena uu gogo'ayay cabdirasaaq waa kugu celinaya uusan warka noogu imaanaynin may waan kugu celinayaa laakiin xaggaaga shanqar badana ka dhacaysa marka shanqarta xaggaaga ka dhacaysa baananaan ka joojiyo okay aye marka suldaan xaafad ilma joogaa hoosaan uga tegayaa haye assalaamu calaykum ma maqlaysaa waan ku maqlaynaa markaa suldaan cabdirasaaq waxaan rabaa inaan su-aasha kugu celiyo sidii cabdulqaadir u xanuunsaday su-aalahana la weydiinayaa dadku ay shaki badan ka qabaan maadaama cabdulqaadir uu xanuunsaday hawshii uu waday siday noqonaysaa xaggay ku dambaynaysaa marka dadkii shacabka ahaa ee uu hogaanka u ahaa cabdulqaadir intaanu xanuunsan walwalkaasay qabaan marka qaadir baan maqlo wax kale ma maqlo sayidka sii axmed waayahay sayid cabdullaahi suldaan cabdullaahi cabdirasaaqow ka baxo ku soo laabo cabdirasaaq may maqlay horta si fiican malayn okay suldaan maariyaa la isiiba sayid cabdirasaaq haya hadda may maqlaysaa suldaan sayid haa waa ku maqlaya hadda haa haddaad i maqlayso walaalow su-aalo badan baa ka dhashay xanuunka cabdulqaadir oo dadkii ay shaki ka qabaan hawshii uu waday iyo arrintii uu hogaanka u ahaa xaggay maraysaa intuu xanuunsanaa hawshii ma socotaa dadku welwel bay qabaan marka bal la hadal oo la khitaab dadkana daawanaya oo guddoomiyaha u yahay cabdulqaadir cali yarow oo xanuunkiisa ka welwelsan iyo hawshii uu hayay soo dhawow waa dhawahay bismillahi raxmaani raxiim hadda kolleyba hawl walba horta marka la qiimeynayo runtii waxaa lagu qiimeeyaa sayid lama qofka maqlayo madaxda oo hawsha madaxda hawsha markaa wada ayaa lagu qiimeeyaa runtii marka markii la dhahayo hawl ayaa meel ka socota kolleyba waxay leedahay hoggaan iyo dad fara badan oo markaas ama haddii aynu shaqaale xataa tusaale ahaan usoo qaadano iyo madaxdooda inkastoo hawsha inta badan iyo hagiddeeda iyo nidaamkeeda uu ku xiran yahay qofka hoggaanka haya ama guddoomiyaha ama madaxda ka ah hawshaas haddana waxaa meesha jooga dad fara badan runtii oo hawshii maaragta muxuu ahaa dhinacooda ka wada oo halgamaya 24 saac oo muxuu ahaa cabdulqaadir garabkiisa taagnaa ilaa haddana taagan marka waxaan isleeyahay runtii cabdulqaadir maanta haddii tii rabbi u timaado oo maaragtay naga baxo horta runtii shaksi weyn oo hoggaan iyo muxuu ahaa maamul iyo wax walba ku wanaagsan ayaa meeshii ka baxay ilaahayse waxaan ka baryaynaa marka hore inuu ilaahay noo caafiyo oo hawshiisa ku soo laabto oo muxuu ahaa caafimaad degdeg oo taama ilaahay uu noo siiyo haddiise ay dhacdo tiisi maanta inay timaado qof walba waqti uu leeyahay runtii oo saacadna ka hormaraysid saacadna kama dib dhacaysid waqtigii lagugu talagalay marka haddii ay tii rabbi timaado maanta oo dhacdo waxaan is leeyahay kolleyba hawshii way soconaysaa oo muxuu ahaa meeshii yacni ma istaagayso insha allah kaalin muhiim ha ka baxdo hoggaan ha ka baxo si walba ha noqoto
dadkii odayaasha oo haddaba meeshaan soo taagan oo maaragta boqolaalka ah oo guddigan ku jira oo 24 saac u taagan inay maaragtay yani ra'yi keenaan oo wax soo biiriyaan oo wax walba maaragta sidii wax u socon lahaayeen ra'yi isdhaafsadaan ayaa wadaya oo hawshii isleeyahay ma hakanayso insha allah waxaan rajaynaynaa inay meesheedii kasii socoto muxuu ahaa hoggaan wanaagsan oo sidii oo kale cabdulqaadir haddii ay dhacdo maanta in la waayo laa saamax allah haddii ay dhacdo inay maaragta la waayo yani kolleyba hoggaanna waa la samayn doonaa hawshina way soconaysaa cid kasta oo is leedahay ama maanta ka qabo madaxweyne kasta oo la jecel yahay ama agaasi la jecel yahay ama wasiir la jecel yahay oo hawshii markaa horseed oo haddii un meesha uu ka baxo kolleyba way soconaysaa hawshii marka waxaan isleeyahay walwalka badan iyo walaaca badan ha la iska daayo hadda waqtigan xaadirka waxaa kaliya waajib nagu ah inaan u duceyno gudoomiyaha yagii cabdulqaadir cali yarow ilaahay inuu caafiyo inuu caafimaad buuxo taama ilaahay siiyo culayskeenna inaan intaa saarno oo maanta maxaa yeelay qofka markuu walwalayo waxaan isleeyahay jaa wuxuu isdhahay qofkaan cabdulqaadir teg marka annagu ma xukumi karno cabdulqaadir inuu tegey annagaan hadda maanta caawa halkaan fadhina oo hadlayna oo caafimaadka qabna waxaa dhici karta qofkeen mid annaga naga mid inuu ka hormaro cabdulqaadir marka yaan la isdhihin cabdulqaadir waa uu tegey maaragta walwalka iyo walaaca maaragta waxaan isleeyahay waqtigaan xaadirka looma baahna waa waqtiga aan u duceyn lahayn cabdulqaadir cali yarow insha allah ilaahay inuu caafiyo oo caafimaadkiisa ilaahay uu soo siiyo oo ilaahay amarkiisa muxuu ahaa waa kun fayakuunu ma foga kun fayakuunu marka insha allah waxaan dadka ugu baaqayaa marka ugu dambaysti inaan culayska saarno waqtigan xaadirka ducada inaan badino oo ducada badino oo ilaahay u barino intaasoo addoommana oo ilaahay baryaysa ilaahay maaragta muxuu ahaa udcuunii astajib lakum macnada ma foga inuu ilaahay ka aqbalo intaasoo wadareed oo ducaha wadareed marka aan culayska markaa saarno meesha yaanaan islihin walwal iyo maaragta hadda waqtiga xaadirka yaanaan muxuu ahaa isku abuurin hawshaan waa siday u bilaabatay insha allah way soconaysaa mana hakan doonta insha allah marka waa ka baxay salaamu calaykum الله سلطان حتى لو كنا بل استنسي ومارك تيتي أو بتاني يحتاج وتحمل فيها وولو خلاص بل أصبنا وحو يقول لك موجين لها سدو بسم الله الرحمن الرحيم waan mahadsantihiin kolley sayidka sheekh baa suldaanka sheegay inta badan naftiisa iyo nafteennu way siman tahay horta number 1 oo in badan baynu ilaahay adduunka ina dhigay oo waxaanu soo aragnay dad badan oo laga dayrinayo oo haddana dadkii ka dayrinayay ka hortageen adduunka in badan waynu aragnay ilaahayna waxba kuma aha caafimaad iyo xanuunkaba ilaahay baa haye awalan waxaan ducadaasaan ku celcelinaynaa inuu horta inoo soo caafiyo haddii ay taala noqotona waxa weeye arrinkanu marbuu ayuu waqtigii maaragtay uu soo dhafay ilaahay haddaayo dee uu nala soo halgamay uu soo halgamay waqti wuxuu marayaa maanta aan maaragtay dib u dhac yar waa laga yaabaa inuu ku dhacdhaco inta la maaragtay badbedelada laakiin wax xumaa maaragtay dariiqii la wada jeexay uu ku hogaaminayay dadka waxaan aaminsanahay inuu sidiisa u sii shaqaynayo arrinkana arrin xagga rabbaaniga laga wado weeye waa arrin dad badanu shalay lagu wareysanayay meel aan kaa soo galaan waaye in badan baa la in arrintan la dhaqaajiyo anigu intii aan jiray 19 magaalada muqdisho guri 2 dabaq oo ku yaala isbartiimada agteeda oo gabadh maxamed gurgaartaal ahayd oo sarkaalad ahayd ina kharaab ayaanu kor iyo hoos degnay odayaashana kor baan dejinay dhalinyarada aan ku jiray markaasna hoos bay deganaayeen oo tiro maadi markii la doortay
rag badan oo meesha ku jira hadda cabdullaahi ducaale ka mid yahay ka mid ahaa soddon baa u tegey cali mahdi wuxuu yidhi saddex oday keena iska soo xula hawii oo dhan buu u shiriyey saddex oday baa loo allahu naxariista way dhinteen waxa uu yidhi maaragtay waddanka wuxuu noqon doonaa federaal adigu arrin baa laysla waxbay is yidhahdeen ka qabta arrintaa muddaanu waxbaa isdhaafdhaafay marka adigu way socon weyday in badanoo ka horreysana kolle waa la isku dayey laakiin maanta waxa weeye wanaagsan oo aanay ka soo noqonayn oo dadkii boqolkiiba 80 ay maxamed gurgaartana diyaar maaragtay ku yihiin horboodayaan hor socdaan odayaashoodii iyo miidoodii oo dhan ay ku raalli tahay daama gurgaartay silcis wadalaan kullina dee ay wada diyaar yihiin oo wada ognahay arrin guda iyo dibadba teknolojiyadaas ay sahashayoo maaragtay iyo maamulkii quruxda badnaa uu sahlay oo heer gaadhay aanay ka soo noqon karin waxaan kolley meel banaanaanaysa laakiin arrintanu mid istaagaysa maaha midhihii uu ka shaqinayay waqtiga iyo tamarta ku bixiyey hadduu ilaahay caafiyana uu ku bixin doono wax iska bedelaya inaanay jirin baan anigu aaminsanahay waa idin salaamaya waayahay suldaan cabdirasaaq dad baa asalaamu calaykum dad baa walwal ka qaba shaqadii uu cabdulqaadir hayey marka maxaa dadka ugu qaboojinaysaa taageerayaasha gurgaate ee aad uga walwalsan hawshii uu hayey cabdulqaadir intaba soo dhowo cabdulqaadir walaalkeen howl weyn buu hayey kaalinkiisina wuu bannaan yahay balse haddii tii rabbi ku timaadana haddii waxa weeye waa arrinaanu ka wada tashan doono oo aanu iska baari doono ninkii mudan booskaa qaban kara inuu qabto ninkii hoggaamin lahaa inuu markaana hoggaamiyo annana aanu ka dambayno cabdiqaadirna ilaahay khayr iyo xasanaad allaha ka siiyo hadalkayga ma sii badanayo caawo dhan waxa weeye internetka buuriga internetkayga halaysan maqalkeennu aad buu u yar yahay marka haddii nin la waayo wax dalwaya waxaad moodaa suldaan cabdirasaaq inaanu maqlo suldaan cabdirasaaq waxa weeye macnaha dadka hawshii bay ka walwalsan yihiin uu waday cabdulqaadir marka hawshii sideediiba inkastoo cabdulqaadir xanuunsan yahay inay hawshii soconayso oo aan waxba isbedelayn ma u ballan qaadaysaa yacni oo dadka ma ugu laab qaboojinaysaa adoo ka mid a sanaadiinta gurgaata ilaahay baanu ka baryaynaa inaysan hawshii istaagin taa waa midaanu u istaagnay waa midaanu u qunnay waa midaanu habeen iyo maalin u soo taagannahay istaagi mayso haddii ilaahay yiraa ilaahay baanu u baryaynaa inaysan istaagin oo hawsha ay noqoto mid socoto waana soconaysaa haddii ilaahay yiraahdo wax rag ku kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan waayahay insha allah taasaan aaminsanahay waayahay waxaan siinayaa suldaan mubaarak soomaalidu waxay tiraa god iyo ninka loo wado lama kala qariyo waxay ila tahay suldaanka guud waa adiga dadkuna wixii aad maanta tiraahdo ayay dhegaysanayaan kuna qalbi qaboobayaan marka maxaad u sheegi lahayd taageerayaashaada ama beeshan dadkan aad u tahay suldaanka afartan beelood ama shantan beelood ka kooban iyo kuwa aan weliba lahayn sida maashe iyo insha allah la heli doono iyo maanle intaba iyo inta hadda joogtaba maxay ku qalbi qabowsadaan aad u sheegaysaa ilaa suldaankoodii guud waa adiga soo dhow axmedow walaal awalan horta waxaan reer gurgaato waxaan u sheegayaa haddii maanta uu cabdilqaadir uu xanuunkaa ku sii raago iyo haddii tii allaba timaado de kama aynu celin karna maanta geeri qofkeenna kama baajin karo oo inagaanba dee aan sugaynba inaynu ka horeynayno oo sidaa uu sheegay walaalkay sayid iyo ugaas cali daruusi ay sheegeen nin horeyn allah og
inuu caafimaadana ilaahay waan uga baryaynaa laakiin reer gurgaate waxaan u sheegayaa hawshaan waa socotay waana soconaysaa dibudhac waa ku yimid oo run ahaantii dee walaalkeen intii laga rajo sugayo oo caafimaad ahaan inuu soo raysan inuu xanuunka cabaar kusii raagi tii alle inay iman intaa warwarka laga warwarayo waa dibudhac waa imaanayaan oo hakad way ku imanaysaa hawshii laakiin waxaa jooga halyeeyadii markii horeba hawsha la waday garbihiisa ahaa gudoomiyaheena cabdulqaadir cali yarow intiiba way joogaan iyo kuwo kaleba waa joogaan hawshuna meeshii ugu fiicnayd bay maraysaa waxaana aad iyo aad u jecelahay ilaahayna aad aan uga baryaa in uu cabdilqaadir dhammaystirkeeda inuu isagoo caafimaad qaba inuu inala joogo oo maanta xafladda keliya inoo hartay xamar la isugu tagayo bisha julaay 4teeda haddii waqtigood iyo duruufahani ay noo saamaxaanba inuu inaga mid noqdaan ilaahay aad ugu rajo weynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u sheegayaa reer gurgaate midnimadeedii waa socotaa waa hirgashay waa taam waanay soconaysaa raggii wadayna waa joogaan madaxii baa ka jiraday ilaahayna caafimaad baan uga rajaynaynaa haddii uu xanuun ku raagana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo caafiye inaan waxba hakanayn oo hawshii ay soconayso oo raggii shalay halkaa la geeyey halkaa la joojiyey oo adiga axmeda aad ka mid tahay oo suldaan cabdilqaadir ka mid yahay oo sayid ka mid yahay oo waas cali daruus ka mid yahay oo uu ka mid yahay cabaas cali oo hadda inaga maqan oo cali xuseen naali ka mid yahay oo iyadana astur oo gudoomiye ku-xigeenka ahayd oo iyadana runtii hadda la ii sheegay inay xanuunsanayso oo aad isaga shakisan xanuunkan laftarkeeda iyadana aan ilaahay uga baryayn inuu ilaahay caafimaad siiyo ay iyaduna ka mid ay tahay oo iyo rag kale oo fara badan oo aan tiradoodu yarayn waa guddideenii 5 ahaa ee gudoomiyaha u ahaa cabdilqaadir raggiiba waa joogaan oo halyeygii qaaliga ahaa oo isna siciid professor siciid oo xamar uu joogo dhammaanteen waa la joogaa innagaa joogna waxaa jooga garaadkeennii cagi garaad xuseen inkastoo asna ku xaniban yahay hadda turkiga ku xaniban yahay oo hawlihii xamar uu ka qaban lahaayoo dhan asagii iyo guddidiisii ay xaniban tahay oo garaadkii la sugayo oo diyaaradihii ay istaageen ayagana waxaan insha allah hawshu way soconaysaa reer gurgaate yaanay niyad jabin baan leeyahay ilaahayna aan uga barino habeen iyo maalin waqti kastoo aan salaad tukanno aan xasuusnaano cabdilqaadir aan u ducayno in ilaahay caafimaad siiyo wax walba waa qorayin geeri ma ka joojin karno tii alle innagaan iska qaban karin laakiin innaga waajib waxa inagu ah walaalkeenan jecelahay inaynu had iyo jeer aynu u ducayno oo ducada aan la garab taagnaano waana ka baxay wasalaamu calaykum gabagabadii waxaan xalan la hadlay gudoomiyaha gabdhaha gurgaate bilaad oo xanuunsanay oo runtii calaamadaha ii sheegtay ay ahaayeen calaamadihii xanuunkan maadaama aniga nafteeda oo xanuunkan sida la sheegay ay ii sheegeen dadka professionaliska inuu isaameeyey siday markay ii sheegtana sidaasoo kaloo ahaa astur sidoo kaleu saameeyey xamdi way xanuunsanay cabdulqaadir wuxuu ku jiraa isbitaalku intaa ku jira marka gabagabadii waxaan rabaa qof walba inaan siiyo inuu dadka maaragtay sanaadiinta dhan inuu kelmadihii ugu dambeeyey inuu u duceeyo haddana waxaan ugu hormarinayaa siyad sheekh cabdulaahi suldaan soo dhawow sayid may maqashaa سلام هذا كم قلي ها مرمر أذكر هذا مقشو وها حنوس مايا هذا مقشو كسعة كلمة أذكر أي جاي حوله هذا سؤال أذكر أي جاي حوله كذا في عاد مقشي وها حنوسن أيضا قدومي وكل حجانكي وها حنوسن حمدي وحاصل وكلا حنوسن قدوميه بلاد قبلها بلاد وسيد الرنتي بركي على إيش تأندريمي waxay ii sheegtay inuu xanuunkii wixii aniga igu dhacay inay yihiin marka waa daqiiqadii ugu dambeysay bal waxaad dhihi lahayd ugu ducayn lahayd insha allah intaan aan ka bixi barnaamijka soo dhawow okay horta dhammaan ilaahay waxaan uga baryaynaa inta xanuunsan oo cudurkan maanta la xanuunsan ilaahay inuu ka qaado
oo muxuu ahaa si degdeg caafimaad ilaahay u siiyo muxuu ahaa ayaan ilaahay uga baryaynaa marka wax kaloo jid kaloo noo furan ma jira maanta inaan ilaah barino oo aan muxuu ahaa inuu cudurkan iyo culayska maanta jira naga qaado oo naga dul qaado insha allah marka waxaan leeyahay anigoo ducadii hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam adciyadii oo muxuu ahaa markii qofka shifo loo weydiinayo ama muxuu ahaa caafimaad loo weydiinayo muxuu ahaa uu akhriyey ama uuna faray inaan akhrisano ayaan kusoo khatimayaa marka allahuma raba annaasi adhib alba'sa washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uka shifaa'an laa yuqaadiru saqama allahuma raba annaasi adhib alba'sa washfi anta shaafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقدر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم 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 إلى إلهي عافية وعافمات بحوتام إلهي وسيء يعني إلهي مقرينا مركي إلهي مقت مقرب أيال الجوجا أو مقرب كي أو على الأدمية مركي إن شاء الله وقت كان صلاة الأدمية فضل جيس أيان إلهي وقبر يا مرلبات يا مرسدحات إن إلهي عافية خاصة قدومية يجي عبد القادر علي يرو إله عافمات بحوتام السيء إله عافمات بحوتام السيء أو سيء لما فلانا لما فلانا إلهي عافمات وسود الجي أيان إلهي وقبرينا إن شاء الله العاب وقبرينا إن شاء الله إنه قصة توصل ومارتها قصة بحسبتالكي ومارتها انتنسف كيرك إلهي قصة صاروا ومحوها نولشيس يمارتا يعرورتيسي أهلكيس وصل لابتو أنا جانا أقول وصل لابتو بدونكي هل كان كي نمشي عن كوض وضنا يا إلهي كبرينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله سلطان عبد الرزاق مع صدر الله دقيقة أسكيب الجبهة الدعاء دي يقول كلنا الجبهة إن شاء الله waxaan ku darayaa hadal intiisii badneed sayid sheekh cabdullaahi yaa yiri soomaaliduna waxay tiraahdaa duco oo dhan waa durow habaar oo dhanna waa dhimo marka ducada aan ugu duceynayno walaalkeen haddii uu nin adduunyo yahayna in ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan uga kiciyo haddii uu nin aakhiro yahayna kulligeen ayaa wada aakhiraha qof walbana dhimanayo in ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo hoggaan fiican oo na hoggaamiyana in ilaahay oo meeshii noogu bedelo isagana jannadii iyo radidii in ilaahay uu ka siiyo qabrigiisana ilaahay uu qabuujiyo haddii uu kacayane inuu ilaahay ka kiciyo annagu ma naqaano ilaahay baa yaqaana wixii gadaal ka imaanayo nafteena iyo naftiisana waa simantahay mid ka hormarayso godka ilaahayga subxaana qaadirkaa og qof walbana waxaa loogu bishaareeyay inuu dhimanayo qof walbana inuu godka aadayo marka imtixaanka walaalkeen uu ku jiro in ilaahay uu ka saaro oo kii gurigiisa iyo reerkiisa iyo guddoonkiisii iyo maamulkiisii nagu maamulo inuu ilaahay ka dhigan nagu duceynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاك الله أوقات عيدروس بسم الله مر لبعض وحنا هاي horta aan ku inaan dogeyn mooye gabadh kale oo aad inoogu qaaliyo halgamaya oo leedahay nadiifo cali kulamba iyadana maanta looga sheeg baalkaas xanuunsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wadana waa maqlay maanta labadooda waa maqlay laakiin bilaad ma maqal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa gabdhaheenaas waa kulli gabdho inagu wada qaaliya oo halgankan iyo hawshan lafdhabar u ahaa in ilaahay iyagana noo caafiyo ayaan ilaahay u baryaynaa baadkan iyo waxaan dhacaya markaad miisaanka saartid sidaasaynu buro ku sidnaa alxamdulilah ilaahayna waxaan ka baryaynaa guddoomiyaheena dee ducada waxa weeye sayidkaa u dhameeyey intaa uu yiri baan aamin leenahay ilaahay maaragtay inuu inuu maaragtay xanuunka ka dulqaado ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu caafimaad waxba kuma aha ilaahay uu inoo siiyo aamin baan leeyahay intaasaan kusoo gabagabaynaya سلطان gabagabadii ereyadaadii ugu dambeeyey iyo dardaarankaagii kolay ducadii waa la dhameeyey anaa hadlo un looma hadle walaalkeen sayid iyo walaalkeen sultaan cabdirasaaq iyo ugaas cali daruusba waa gabagabeeyeen
waxaan ku darayaa waxaan leeyahay ilaahay walaalaheenna xanuunsanaya cabdulqaadir ugaasada guddoomiyaha iyo dhammaan inta kale ee naga xanuunsanaysa xamdi iyo inta kale aynaan ka warhayn iyo ummadda islaamka ah oo dhan inta xanuunsan allah ha caafiyo allah xanuunka ha ka qaado balaayadan iyo masaa'ibtan socotana ilaahay hayna baalmariyo ilaahay hayna baalmariyo ilaahay khaatimada khayr haynooga dhigo ilaahay khaatimada khayr haynooga dhigo muwaafaqada iyo isu imaatinkeena iyo kalgacalka iyo muxibada reer gurgaate khaasatan ay gaar u wadaana ilaahay ha u siyaadiyo ilaahay cisi iyo karaamo iyo sharaf waa leenahay allah inoo sii siyaadiyo amiin ورب العالمين تسأل فاتح بسم الله رب العالمين سلطان سيد شيخ عبد الله iyo ugaas Aydruus iyo Sultan Cabdirasaaq iyo sultaanka guud ee Beelaha Gurgaate Mubaarak Cali Xirsi ayaa barnaamijka igala qayb galayay waxaana idin la socodsiinay barnaamijka anigoo Axmed Cali Hudaya intaan barnaamijkan oo kale aad ku kulmi doono insha Allah waxaan rajaynaynaa barnaamij aan muruga ahayn inaan isugu nimaadno wixii hadda ka dambeeya intii ducadii aan maanta isugu nimadnay in ilaahay noo aqbalo ummadda xanuunsan oo dhanna ilaahay inuu amiin amiin marka insha allahu tacaala barnaamijkeennii caawa intaasuu ku eg yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa barnaamij xiise leh inaan isugu nimaadno oo aan muruga xambaarsanayn barnaamijka xiga marka intaan dib u kulmi doono waa anigoo Axmed Cali Huday oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.